AC Milan ayaa la yaab weyn ku noqotay Champions League waxayna xalay 3-1 ku garaacday Real Madrid garoonka Bernabeu Stadium. ciyaartii ugu horeysay ee Real tan iyo 4 eber ay ku eebeeyeen Barcelona. wiilasha Carlo Ancelotti waxa ay sameeyeen bilowgii ugu xumaa iyagoo ku sii dhacay rubsac gudahooda waxaana madaxa u dhaliyay midigtayba. rugooradii uu dhaliyay Francisco Jr bartamihii qaybtii hore ee ciyaarta ayaa u muuqatay inay bilaabanayso soo laabasho kale oo Los Blancos ah, laakiin jamaahiirta garoonka ayaa la yaabay markii weeraryahankii hore ee Real Alvaro Morata uu dib ugu soo celiyay Rossonero. waxayna jirtay naxdin kale oo soo wajahday 83,000 oo taageerayaal ah iyadoo Tijani Rangers uu soo gabagabeeyay talaabo wanaagsan oo ay Milan sameysay si ay ula wajibaarto hoggaanka martida loo yahay iyadoo ay ka harsan tahay 20 daqiiqo wax ka yar. Milan ayaa wax badan heli kartay iyadoo referee Leo si cajiib ah u diiday Andrea Lunin wuxuuna sidoo kale birta ku garaacay koorno halka Kylian Mbappe uu ahaa lumiyay fursadihii dahabiga ahaa kana baasay dhinaca kale. Antonio Rudiger ayaa u maleynayay in uu kala badh ka jari karo lacagta lagu leeyahay iyadoo ay 8 daqiiqo ka harsan tahay markii uu ku soo tuuray gurigiisa kadib goosgoos, laakiin kadib markii VAR dib u eegis dheer lagu sameeyay goolka ayaa laga dhigay offside. Real ayaa cadaadiskeeda sii waday laakiin Paul Fonseca kooxdiisa ayaa awooday inay si raaxo leh ula tacaasho maadaama Mika Micnino uu sameeyay badbaadin fiican 6 daqiiqo oo dhaawac ah. kooxda martida loo ahaa ayaa lagu oriyay oo lagu foodiyay qaybta nasashada waxa ayna sii xoojisay jeesyadaas 10 jibaar markii uu seeriga u dambeeyay ku dhawaajiyay garsoore Zlatan iyadoo Real ay soo gaartay guuldaradii labaad oo xiriir ah garoonkeeda. Qaabiyaareed aad u fiican ayaa culayska ka yareen doona Francisco Milan kuwaasi oo la siman dhibaca Real ee 36 kooxood iyagoo fadhiya kaliya hal meel oo ka hooseeya farqiga goolasha.